Waan ku salaamay daawade. Ku soo dhawow muuqaalka maanta oon kaga hadli doono soo degitaanka uu soo degi doono Nebi Ciise calayhi salaam aakhiru zamaanka. Nebi Ciise calayhi salaam waxa uu ka soo degi doonaa waddanka maanta aan u naqaano Suuriya, gaar ahaan magaalada Dimashq. Masaajid ay minaaradiisu caddahay oo ku yaala dhinaca bari ee magaalada. Waxa uu soo degi doonaa xilli ay ku beegan tahay salaada subax, isagoo oo xidhan dharkiisa dagaalka. Kadib marka uu soo dego isagoo oo dharkiisa dagaalka wato, waxa uu muslimiinta masaajidka ku sugan u sheegi doonaa mid kastaba halka uu ku geli doono jannada, taasi oo u caddayn doonta muslimiinta masaajidka ugu tukanaysa inuu yahay Nebi Ciise qofka ay arkayaan. Xilliga masaajidka waxaa ku sugan Mahdiga oo ah muslimiinta imaamkooda. Mahdigu waxa uu ku sharfayaa isla markaana uu ugu yeedhayaa Nebi Ciise inuu tujiyo salaada subax, balse Nebi Ciise waa uu ka diidayaa, waxaana uu odhanayaa ummadda Nebi Maxamed ay istujiyaan salaadooda. Halkaas ayaa uu kula tukanayaa salaada subax, waana magaalada Dimashq, masaajid ku yaala dhinaca bari, minaaradiisuna caddahay. Kadib marka ay salaada subax laga baxo, Nebi Ciise waxa uu raadinayaa calayhi salaam masiixu dajaal oo ahaa kii dunidan kharribay intaanu Nebi Ciise soo degin. Isla markaana Nebi Ciise waa nebiga dili doona ama qofka dili doona masiixu dajaal. Masiixu dajaal waa uu ogyahay in qofka dili doona uu yahay Nebi Ciise. Waa uu ka warwareegayaa oo uu ka baxbaxsanayaa inta uu ka warwareegi karo ilaa kama dambaysta ay ku kulmaan magaalada Lud. Ugu dambeynta waxa ay ku kulmi doonaan meel loo yaqaano Baabu Lud oo ah ka tirsan Falastiin. Marka ay ku kulmaan Baabu Lud, masiixu dajaal waxa uu noqonayaa mid shiiqay isla markaana cabsi darteed yaraaday, maadaama uu ogyahay inuu yahay qofka dili doona Nebi Ciise. Kadib marka uu Nebi Ciise dilo isla markaana uu kaga takhalluso masiixu dajaal, Nebi Ciise calayhi salaam wuxuu dunida ku maamuli doonaa iscadaalada, taasi oo dunida ku sababi doonta in la waayo qof dhowrtaystaba ama qof faqiira, sababta ugu weyn ay tahay ammaan iyo ammaano. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay xilliga uu joogo Nebi Ciise waxaa dhici doonta in dhammaan xooluhu iyo dugaaggu ay isla daaqaan, sida libaaxa iyo geelu ay isla daaqaan. Sidoo kale xayawaan kasta oo wax cuni jiray uu la fadhiyo ama uu la daaqo xayawaankii kale u dhibaatayn jiray, oo masaska ay ku ciyaaraan ciyaalku. Sidoo kalena dugaaggu ay weheshadaan oo ay isweheshadaan xayawaanadii cuni jireen. Haddaba xilliga uu joogo Nebi Ciise calayhi salaam, Ilaahay waxa uu soo diri doonaa qoomkii la odhan jiray Yuug iyo Maajuuj, kuwaasi oo ah qooma la abuuray isla markaana maanta dunida ku sugan. Haddaba soo diritaankooga lasoo diriyo meel kasta oo ay maraan waxa ay ka dhigi doonaan, waxa ay fuuqsan doonaan isla markaana ay qallajin doonaan badaha adduunka, taasi oo marka uu midi soo maro badda, marka uu cabo ka kale ka dambeeya dareemi doono ama uu sheegi doono odhan doono halkan bad ayaa ahaan jirtay. Haddaba marka ay waxay doonaan ka sameeyaan dunida isla markaana ay laayaan dadka, waa Nebi Ciise iyo muslimiintu waxa ay ka kori doonaan buuraadu dheer. Marka ay ka farxashaan Yuug iyo Maajuuj adduunka wixii dul jooga in ay laayaan, ayaa waxa ay odhan doonaan waxaa noo hadhay in aan dillo waxa samaawaadka ku sugan, taasi oo ay ku jeedin doonaan falaadhahooga ama leebabkooga xagga samada. Kadib marka ay samada ku jeediyaan, ayay leebabku waxay ku soo noqon doonaan iyaga oo dhiig leh, taasi oo ah imtixaan Ilaahay ku imtixaamayo. Imtixaankaasi kadib waxa ay dabaaldegi doonaan dabaaldeg aad u weyn, kaasi oo ay dareensan yihiin in ay dileen wixii samada joogay. Intaa kadib Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu soo diri doonaa dirxiyar ama dirxi, kaasi oo ka geli doona. Kadib marka loo soo diro dirxiga yar, waxa uu samada ka wada geli doonaa qoomkii Juug iyo Maajuuj. Intaa kadib waa ay wada dhiman doonaan, oo adduunka waxaa laga joogi kari waayaa qarmuunkooga meel kasta yaalla. Kadib marka ay wada dhintaan, adduunku wuxuu noqon doonaa mid aad u qarmuun, isla markaana qarmuunkoogii laga joogi kari waayo. Nebi Ciise calayhi salaam ayaa la baryi doonaa, waxaana uu weydiisan doonaa inuu ka nadiifiyo isla markaana uu ka xaaqo qarmuunka reer Yuug iyo Maajuuj. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ka aqbali doonaa baryada Nebi Ciise, waxaana uu soo diri doonaa roobkaasi oo biyihiisu ay ka dhaqi doonaan isla markaana ka nadiifin doonaan qarmuunkii dunida isku bedelay ee reer Yuug iyo Maajuuj. Nebi Ciise calayhi salaam markii kor loo qaaday ee isla markaana samaawaadka la geeyey, waxa uu ahaa 33 sano. Kadib marka imiga la soo dejiyey, waxa uu dunida ku noolaan doonaa 7 sano oo keliya. Marka uu dunida ku dhaqo isla markaana ay dunida noqoto mid ammaan ah, ayaa Allah subxaanahu wa tacaala u oofsan doonaa oo uu dhiman doona Nebi Ciise. Halkaas waxaan kusoo koobi doonaa muuqaalkii aan kaga hadlaynay soo degitaanka Nebi Ciise. waad mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan la wadaag asxaabtaada, kana mid noqo asxaabta nagu xidhan subscribe to sar.